afartan sano kadib waxa uu ka baxsaday dagaaladii Afghanistan waxaana uu ku dhintay weerarkii lagu qaaday masaajidka Al-Nur ee magaalada Christchurch ee dalka New Zealand sanadkii 1979 Xaaji Daawud Naabi waxa uu ka baxsaday dagaaladii ciidamadii Soofiyetiin iyo dawladda Afghanistan waxaana isaga iyo qoyskiisu magangeliyay ay u doonteen dalka New Zealand ku dhawaad 40 sano kadib jimcihii shalay ayaa lagu toogtay masaajidka Al-Nur ee ku yaal magaalada Christchurch ee dalka New Zealand waxa uu mar walba dareemi jiray dagaalkii ka taagnaa gurigiisa iyo dhibaatadii nala soo maray markii aan ka soo qaxnay dalkeegii hooyo sidaasi waxa yiri wiilkiisa Cumar oo 43 sano jir ah oo u waramayay telefishinka Al Jazeera 49 ruux ee lagu dilay weerarkii shalay ee uu ku jiray Naabi ayaa maanta lagu aasi doonaa wadanka New Zealand aabahay waxa uu kala badh noloshiisa ku qaatay dalka New Zealand waxaana lagu aasi doonaa halkan sidaasi waxa yiri wiilkiisa Cumar intii lagu guda jiray tukashadii salaadii jimcaha 48 jirka Baraton Tarrant ayaa si ula kaca u toogtay muslimiintii ku cibaadeysanayay masaajidka Al-Nur ee magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ninkan oo lagu tilmaamay xaq jirkii ugu xumaa ee soo mara taariikhda dalka New Zealand ayaa maanta oo Sabti la horgeeyay maxkamad ku taala dalkaasi Naabi ayaa ka baxay 4 wiil iyo 1 gabadh iyo 9 caruur ah oo awow u yahay sida uu xaqiijiyay wiilkiisa Cumar oo la hadlayay telefishinka Al Jazeera tani waa waqti aad u adag oo nala soo gudboonaaday annaga iyo qof kasta oo xasuuqaasi kaga baxay qofkii uu jeclaa sidaasina waxa yiri Cumar oo Al Jazeera la hadlayay aabahay ayaa ii sheegay sida ay muhiim u tahay in la fidiyo jacaylka iyo midnimada midba midka kale iyo wada noolaanshaha naga dhaxeeya bulshada aanu nolosha wadaagno shakhsiyaad ka mid ah dadka muslimiinta ayaa bilaabay barnaamij uu ku taageerayo in lacag ururin loogu sameeyo dadkii maalintii shalay ay dhibaatadu ka soo gaadhay xasuuqii ka dhacay masjid Al-Nur ee magaalada Christchurch ee dalkaasi New Zealand Cabdirashiid Cali Barre Saab TV Hargeysa